بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب كسر دوالا مقالة هل كان سوق جرني متكمدة مقال كان وحوك سابسين هاي امتحان كي لو كن سوالي تبنكا لو كن إلى باتنك حساب سديدات waxaa cusub mudan imtixaankan wuxuu gaar u yahay ama waa imtixaankii ay galeen ardaydii hore koonfur galbeed stateka la yiraahdo ardayda gashay statekaas joogtay xiligaas marka koonfur galbeed imtixaankii hore sideedaadka xisaabta oo taxana noqon doono inkastoo imtixaanka ay gali doonaan 6 Juun haddana waxaan sameyn doonaa waa dardargelin doonaa annaga oo soo gelin doono dhammaan imtixaankaasi qeybaha uu ka koobnaa ee jawaabihiisa halkan waxaa hambalyo ama mahadcelin gaar ah ugu mahadcelinayaa arday ka mid ah ardayda nagu xiran oo magaciisu yahay Maxamed Cali oo jooga magaalada Baydhabo ee gobolka Baay koonfur galbeed Soomaaliya oo nala soo wadaagay dukumentigii imtixaankii hore ee sideedaadka asagoo ama arday badan oo codsatay inaan ka soo jawaabno marka codsigiini waa uu bilaawday dardarna uu gali doonaa insha Allah taala kanna wuxuu u yahay bilaaw wixii su'aalaad ah iyo mas'alooyin ah aad qabtid meel walba aad joogtidba waxaad iigu soo gudbin kartaa WhatsApp numberka shaashada ka muuqdo haddii aan u soo noqono marka su'aalaha maanta aan bilaabayno horta wuxuu gaar u yahay koonfur galbeed haddii meel kale ka baxsan aad joogtidna oo aad fiirsatid dabcan waxba kaaga bixi doono waa ka faa'iido doontaa su'aasha marka koonfur galbeed imtixaankiisa uu qeyb badnaa wuxuu ahaa 4 qeybood uu ahaa qeybta ugu horeysa waxay ahayd goobo geli jawaabta saxda ah waxaana saarneed 30 dhibcood qeyb kale ay saasoo kala dhibca saaran su'aasha ugu horeysa marka qeybta goobo geli waxa u horeysay ururka guud waxaa loo asteeyaa يعني ururka guud marka la asteynaayo ama marka la sumadeynayo waxaa loo asteeyaa ba waxaa loo asteeyaa udhahay ga weyn ta waxaa loo asteeyaa udhahay u weyn sidoo kale ja waxaa loo asteeyaa xa weyn xana waxaa loo asteeyaa da weyn marka ururka guud sida arki kartid ba guud lagu dhahay maadaama guud uu ka bilaabanayo ga ururka guud marka waxaa loo asteeyaa xarafka weyn ga loo asteeyaa laakiin waxa ogaataa mararka qaar in xuruufo kale loo asteysan karo laakiin sida badan waxaa loo asteeyaa xarafka weyn ga buuga sidaas ayuu dhigaa marka jawaabta saxda ah waa ba ayaa ah ama ayaa sax ah waxa kale arkaysaa koonfur galbeed imtixaankii hore doorashooyinka uma qorneen baata ja uma qorneen wuxuu qoran yahay a b c ayuu qoran yani alphabetical word ama alfabeto ama alfabada ingiriiska uu qoran yahay halka imtixaankii banaadir aan ka soo jawaabnay waxa xasuusataa oo aan rabaa mar walba inaan kugu celceliyo imtixaankan ma aha imtixaankii gobolka banaadir waa ka soo jawaabnay kaas qeybihiisa waxa ka heli kartaa yani janaalka waa ka heli kartaa kan waa koonfur galbeed marka doorashooyinka waa a b c d su'aasha labaad daafirin marka urduleedka a waa urduleedka a waa ba wuxuu dhahay waa 1 sidoo kale andhaho a waxay dhahay 1 b na waxay dhahay 1 3 c na waxay dhahay 4 5 marka saxay marka lama garan karo midka saxda ah sababtoo ah su'aashan waa qabiyo waa ka dhiman tahay urduleed marka la rabo in lagu weydiiyo waa in lagu siiyaa urur guud iyo waa in lagu siiyaa urur in lagu siiyaa laakiin labadaba laguma siinin isla markaasna urduleed waa lagu weydiiyo urduleedka waxa ka horeyso in lagu siiyo urur guud in lagu siiyo ururka labadeen laguma siin marka su'aashan waa qabiyo laakiin sidaan kuma dhaafayno waxaan sameynaynaa urduleed wuxuu yahay ayaan furfurayna tusaale ka soo qaadanayna waxayna bedel u tahay ama magdhow u tahay su'aashan qabiyada ah aan dhameystirnayn ay waxay u tahay magdhow ama aan kaga jawaabaynaa marka su'aashan la kaga soconaynaa
laakiin waxaa waaye waa fiirina oo furfurayna su-aasha saddexaad xidid saddex jibaarka 64 waa xidid saddex jibaarka 64 waa xidid saddex jibaarka 64 maxaa laga wadaa 64 xidid saddex jibaarka saar micnaheedu maxaa waaye number marka saddex goor la isku dhufto keeni kar 64 sheeg wuxuu dhahay waa saddex haddii saddex goor la isku dhufto wuxuu dhahay waxay keenaysaa 64 sidoo kale ta b aan dhaho waa 5 uu dhahay 5 haddii saddex goor la isku dhufto ma keenay 64 ma keenayso 5 haddii saddex jeer la isku dhufto waxaa soo baxayso 125 soo baxayso sidoo kale c ayadana waxay dhahday waa 4 haddii 4 goor la isku dhufto waxay ku siinaysaa 64 ama si kale haddii aan u dhaho xidid saddex jibaarka 64 waa 4 marka a sax ma aha b na sax ma aha waxaa sax ah c ya sax ah marka c-daas ayaa saxan marka haddii 4 goor saddex goor la isku dhufto waxay ku siinaysaa 64 ama haddii xididka saddex jibaarka 64 ama 64 haddii saddex jibaar laga saaro jawaabta waa 4 waa jawaabta haddii markaan aan fiirino su-aashii ahayd muxuu ahaa su-aashii labaad ee ku saabsaneed ururduleedka waxaan soo sheegnay inay qabyo ahayd ay kala dhiman tahay suurtagalna ahayn in la sheego jawaabta laga jawaabo bedelkeeda marka waxaan fiirinaynaa ururduleed muxuu yahay maxaa loo soo gaabsadaa of course yes iyo sidee lagu soo saaraa ururduleedka ba ama ta ama xurba ahaado ururduleed horta muxuu yahay waa ku tirsanayaasha ku jira ururka guud maxaa loo gaabsadaa hadda soo aragnay ga laakiin aan ku jirin urur la tilmaamay oo aan lahayn yani ururkaas la tilmaamay wixii uu noqon karaa ba uu noqon karaa ja uu noqon karaa wixii doono noqon karaa marka ururduleed waa ku tirsanayaasha ku jira ururka guud ee loo gaabsado ga laakiin aan ku jirin urur la tilmaamay hadda ururka la tilmaamay tusaale waxaa isaga soo qaatay see lagu soo saaraa marka ururduleed horta waxaa loo soo gaabsadaa sidaas hadda waxaa soo qaadanaya ururka la tilmaamaya kan oo kale muxuu noqonaa ururduleedka saasaa loo astaystaa ama lagu muujiyey abastrof ama hamzo kor laga saaray hamzo waa ururduleedka haddii ba hamzo kor laga saaro waa ururduleedka ba haddii muxuu ahaa ja hamzo kor laga saaro waa ururduleedka ja saasay noqonaysaa marka oo kor laga saaro hamzo waxay noqonaysaa ururduleedka waxaa lagu helaa waxay la eg tahay ururka guud oo laga gooyey ama laga jaray ururka lagu tilmaamay oo ururduleed markaa rabtid soo saartid hadda ururduleedka waxaa isaga baxsanay ururduleedka waxaa lagu helaa ururka guud oo laga saaray ama laga tirtiray ama laga gooyey ururka lagu tilmaamay hadda ururka lagu tilmaamay wuxuu noqon karaa hadda laakiin waxaa isaga qaadan ururka la tilmaamay inuu yahay haddii aan waxqabad ka soo qaadan marka tusaale haddaan sameyno tusaalahan buuga ka soo qaadanay waa waxqabad ka mid waxqabadyada buuga ku yaalo waxqabadkan wuxuu leeyahay marka waxaan raadinayaa ururduleedka ba haddii ururduleed lagu diro waa in lagu siiyaa urur guud iyo in lagu siiyaa urur markaas lagu tilmaamo waxaa lagu siiyey marka urur lagu tilmaamay ururka lagu tilmaamay magaciisa maxaa la dhahaa ba la dhahaa magaciisa ku tirsanayaashiisa waxaa ka mid 1 2 4 6 intaasaa ka mid waa urur lagu tilmaamay hadday u aragni hadda ba uu noqdo yani uu isbedeli karaa ururka magaciisa inuu noqdo qasab maaha bana inuu noqdo qasab maaha xarafkii la doono ayaa la siin karaa waxaa kaloo lagu siinaa marka ururduleed lagu weydiinayo ururka guud haddaabaa soo sheegnay urur guud waxaa loo soo gaabsadaa ga weyn waxaa kaloo aan sheegay ururka guud markasta inaysan qasab ahayn in loo soo gaabsado ga laakiin mararka qaar way dhacdaa in lasoo gaabsan waayo hadda waxaa loo soo gaabsado ururka guud ku tirsanayaashiisa waa 1 2 4 6 7 9 jawaabta maxay noqonaysaa marka haddii marka aan ka jawaabno waxqabadka wuxuu ahaa waxaan raadinayaa ururduleedka ba ururka lagu tilmaamay magaciisa waxaa la dhahaa ba ku tirsanayaashiisa waa 1 2 4 6 ururka guudna ku tirsanaya waxaa la dhahaa magaciisa ku tirsanayaashiisa waa 1 2 4 6 7 8 9 furfuris dheh marka maxaa laga rabaa ururduleedka ba inaad soo saartid marka ugu horeysa ururka lagu tilmaamay ee ba la soo qoro kadib waxaa soo qortaa ururka guud oo ku tirsanayaashiisa ka mid ahaa waxaa kalarka ka bedelaysaa
ama ka tirtiraysaa ama ka baabi'inaysaa ku tirsanayaasha aan ku jirin ururka ba laakiin ururka guud ku jiro. maxaan ku dhahay? ku tirsanayaasha ku jira ururka guud ee aan ku jirin ururka ba kalarkooda bedel si aysan isku dhex yaacin. ku tirsanayaasha ku jira ururka guud laakiin aan ku jirin ururka ba kalarkan ka bedelayna. marka ururka guud yaa ku jira oo ururka ba ku jira hal waa kaasa hal ururka ba ku jira urur guudna ku jira si kalarkiisa madowga u daa. yaa kaloo ku jira ururka ba iyo ururka guud labo kalarkiisa u daa. waxaan ku jirna raadinaynaa waxaan raadinaynaa waxa ku tirsanayaal aan ku jirin ururka ba laakiin ku jira ururka guud ku jira kuwaas waxay noqonayaan urur duleedka ba gooni aan la bixina. marka yaa kaloo ku jira sidoo kale saddex waa kaasa saddex kalar ka bedel sababtoo ah ururka ba kuma jirto. marka hal xabo waa hal ku tirsane oo urur duleedka ba waa helnay waa saddex. maxaa yeelay saddex ururka ba kuma jirto waxay ku jirtaa ururka guud ku jirtaa. sidoo kale afar ururka ba ay ku jirtaa kalarkeeda ahaanaysaa ururka guudna ku jirtaa. wixii labada ku jira ma qaadanaysid. wixii waxaa rabaa oo ururka ba ku jirin laakiin ururka guud ku jiro. sidoo kale lix ururka ba ay ku jirtaa ururka guudna ku jirtaa ma qaadanaysid kalarkan kama bedelaysid. toddoba ururka ba kuma jirto ururka guudna ku jirta. maxaa haysanaa urur duleedka ba ku tirsanihiisa labaada haysanaa oo toddoba ah horena waxaa u haysan saddex. sidoo kale sideed ururka ba ma ku jirto laakiin maxay ku jirtaa ururka guud ku jirtaa. waa ku tirsanihiisa saddexaad oo noqon doono urur duleedka ba. maxaa yeelay ba kuma jiro duleed ka yahay wuu ka baxsan yahay. duleed maxaa lahaa meel ayaa qabsatay wixii ka baxsan. sidoo kale sagaal ururka ba kuma jirto maxay ku jirtaa ururka guud ku jirtaa. intaasay noqonaysaa. marka intaas ka soo baxsan urur duleedka ba si loo qoray haddaan soo sheegano waa ba lagu muujiyey ama ba kor laga saaray hamso. waxay la mid tahay marka urur duleedka ba waa 3 7 8 9 urur duleedka ba waxaa laga wadaa ku tirsanayaasha aan ku jirin ururka ba ee duleedka ka ah duleed yani ka baxsan duleedka ka ah laakiin ururka guud ku jiro. su-aasha haddaa marka daa u noqotid oo su-aasha labaad waraaqaha way haysatiin haddaa fiirisiin intaana lama siinin urur guudna manala siinin urur duleedna muxuu ahaa urur guudna manala siinin urur la tilmaamayna ma jirin. labaas dilaba marka urur duleed lama soo saari karo. marka su-aashaas waa filaa inaa hadda fahanteen inay qabyo ahayd ama ay kala dhinnayd. su-aasha afaraad waxaa ku qoran ama ku qornayd imtixaankii hore ee koonfur galbeed fasalka 8aadka qormada saynis ee 5 milyan. of course waa 5 milyan qormada saynis ee 5 milyan. waxaa ogaatiin reer koonfur galbeed su-aashaan ebra ka maqan eberka waa in lagu soo daraa. laba miyay noqonaya marka eberka waa in lagu soo daraa. haddii eberka lagu soo daro oo marka u horeysa buugga ama warqadda waxaa ku qoran 2 eber haddana 3 eber 5 marka 3 ebera laga rabaa meesha 2 eber 3 eber laga rabaa ebera ka maqan. haddii sidoo lagu qaadanaa la dhaho oo 5 eber lagu shaqeeyo jawaabta meesha kuma jirto waa in jawaab la sameeyaa. haddii laakiin eberka lagu soo daro jawaabta meesha waa laga dhexelaa. marka labada taaribtid sameeyay laakiin waxaa kuu sheegaa in eberka lagu daro ay dhowdahay ay ka dhowdahay in jawaab meel lagu soo daro. yani jawaab ina meel ku soo dartid ina su'aasha saxdid yani labada waxa waaye waa labo qalad ama labo culus waaye. laakiin waxaa fudud in su'aasha la saxo si jawaabta meesha looga helo. marka eber ku daraysaa eberkaas daa ku dirtid jawaabta meesha ku jirtaa. laakiin haddana sideeda ku shaqeynaa ma laga heli karo jawaabta sida meesha ku soo dirtid noqonaysaa. waxaa soo baxay soo dhaysan dhibic eber lagu dhufto tan lagu muujiyay 7. ba waxaa soo baxay soo dhaysan dhibic eber lagu dhufto tan lagu muujiyay 6. sidoo kale ba ayaa dhihin a b c ku socdaa waxaa soo baxay sidaas b sidaas c waxaa soo baxayso 5 dhibic eber lagu dhuftay tan lagu muujiyay 4. kee saxay marka banaanka keen horta 5 milyan banaanka keen 5 milyan daa banaanka keentid waxay la mid tahay dhaho waxaa ogaataa horta qormo saynis marka la qoraayo waxaa jirto nidaam la maro ama ay tahay in la raaco. marka ugu horeyso sida ay ka arki kartid dhammaan waxa ku jirto lagu dhuftay 10 lagu muujiyay number lagu dhuftay 10 lagu muujiyay number kale lagu dhuftay 10 lagu muujiyay number kale. waa in horta lagu dhuftay
toban lagu muujiye n where n ay tahay any number n ku noqon kara yani n ku noqon kartaa tiro koob laba saddex wixii noqon kartaa laakiin toban lagu muujiye waa in la helaa tiro sidoo kale qormo sayniska dhibicda waa inay bidixda ka jirtaa markasta 1 ilaa 9 1 ilaa 9 maxaa ka wadaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dhibicda waa inay bidix intaas ka jirtaa ka jirtaa waa 1 ilaa 9 ka jirtaa wax ka badan kama jiri karto tusaale ahaan 10 dhibic ma suurtagal ah 10 dhibic qormo saynis ma aha 10 dhibic qormo saynis ma aha 12 dhibic qormo saynis ma aha qormo saynisku waa 9 dhibic 8 dhibic 7 dhibic 6 dhibic 5 dhibic 4 dhibic 2 dhibic 3 dhibic 1 dhibic inay noqotaa la rabaa lagu dhiftay 10 markaas lagu soo muujiyay inta markaas ay tahay ayaa fiirinaysa marka hadeertaan shanta ka soo qaadanaysa marka maxay noqonaysaa 5 dhibic ilaa 5 waxay u dhaxaysaa 9 ilaa 1 u dhaxaysaa qormo saynis waa 9 ilaa 1 u dhaxaysaa 5 dhibicda ma dhigtid marka midigta meeqa number ka marayso 6 number maaho yes 6 number ka marayso waa 6 eber ka marayso lagu dhiftay 10 lagu muujiyay 6 ay noqonaysaa 10 lagu muujiyay 6 marka jawaabta saxda ah tay saxay marka waxa saxan a ma saxno c na ma saxno b ya saxan marka jawaabta saxda ah waa b qormo saynisna waa sidaas oo waa 9 ilaa 1 10 lagu muujiyay 6 sababta u dooran waxay tahay dhibicda oo hadda aan qornay oo la egta yani la mid ah marka kasoo tagto 5 dhibic eber samaan dhibic meeqa ka jirto hal eber ka jirto ilaa 5 kale oo ka maqan 6 baa marka su'aasha kale ee ku xigto 5 waaye urur waxa lagu muujin karaa ururka waxa lagu muujin karaa a hab tixid ah b hab qeexid ah c n waa lagu muujin karaa sida uu sheegay b na waa lagu muujin karaa sidoo kale d midna ma lagu muujin karo inta soo sheegnay marka sax marka a waa lagu muujin karaa sax b na waa lagu muujin karaa sax marka ya saxan a iyo b waa lagu muujin karaa ururka marka la muujinayo habka qeexidana waa lagu muujin karaa habka tixidana waa lagu muujin karaa halkan ayaan ku soo gabagabaynaynaa fadlan subscribe garee haddii casharadeenna ku qanciyeen like saar waad mahadsan tahay subscribe-ta waxay xoojinaysaa tirada arday ee uu janaalka haysto si uu ugu xisaabtamo waa noo muhiim like-na inaad saartid waa sidoo kaleeto haddii like aad saartid waxay keenaysaa arday kale oo adiga kale faa'iido raadis ah inuu arko liajlika ama daraadana uu faa'iidadaas uu ku helo ajriga ka helaysaa marka ajriga ka helaysaa waa like-ta aad samaysay waa qof kale haddaa like samaysid qof kale arki karo oo aan ugu talagalin taasna waxay u tahay inuu ka faa'iidaysto adiga haddaadan like saaran lahayn ma arki lahayn marka ajir kuu soconaayo ayuu noqon doonaa marka ha ka baqiilin like-ta saar meeshan ayaan kusoo gabagabaynaynaa reer koonfur galbeed waa ujeediin inaan idin bilaabnay qeybaha kale ku xigan sida ugu dhaqsiyaha badan haddii ilaahay uu ogolaado waa soo bandhigaynaa insha allahu tacaala idinkana lasii wadaaga asxaabtiina danaynaysa oo guud ahaan koonfur galbeed nagala socoto waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh